weeyaan cabdi mooga caydid aadan anigoo gudoomiyihii Karyola waxa ilaahay ku mahadinaynaa wafdiga maanta noo yimid ee degmada nooga yimid ee soo booqday ee arrimaha deegaanka ka wada tashanayno taas ilaahay mahadiyo aan hareeraha ka taaganahay waxa kale waa markaan ka tashanaynaa sidii aanu wax u qabsan lahayn iyo sidaan arrimaha iyagu dhaqaajin lahayn iyo sidaan danaha iyagu wada hadli lahayn ayaanu sugu nimid marka taasaanu mahad ugu naqaynaa insha Allah bismillaahi kariim ku guul ka dhaliya inaan noqono ayaan ku rajo weynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليانين أو كسر ويننا معمل كي دقمة ونو يمد. عادي أدبان قدوم يدين كسر ويننا وحوي ضم بين غير حيسة. تذكر دون تكره حيسة أنا هدي أنا إسكور هيني وحوي إسكور سجن. إسدحجل كاي إسكور ماتن كاي إسكور هينتو. وحوي أرمها بالشدة. تذكر كره حي أي كم بتاعي. وحوي تاسي أدبان يدينكو هم مليانين أيوه. waxa laga yaabaa inaan hore u arki jirin inta badan matalan tio meediyahan imka dadku daawanayo kale wixii baahay aanu ka sheeganayno waxa degmada inta naga maqan ama degmada matashay aanu kala hadli doonana aanan soo roobi jirin aanu kala hadalno waxyaalahan idinku mahadnaqaynay ka mid tahay waxa weeye hadalku ma badna waxaanan idinku boorinayaa oo idin leeyahay isdhexgalka iyo dhaqaajinta degmada baahideeda iyo waxa ka maqan furihii baad tihiin إن شاء الله كوي بلابي دقمة دقاتين تيدا إيو وحكا دمان إن لو قبطو إنا نقطانو وان إلهي بكبريا سيدا عدمي كو بلودين وودا دقمة هاي سيدا حقا شو هاي سكور هايسو اسكو صوحيدا تدبا كسو بحي دونا عقل لا أما وحقرانيا ودانت الدقمة إيو باهيدي إن شاء الله قران دونا دادكو وحو حوشيغو اسكو كيني لايهيني ديما ودا باباسنا وحويان دقمة بلارن ويان الدقمة كووا ويني Somaliland la tilmaamo ay ka mid tahay insha Allah inaad isku xidhaan oo furaha noo ahaataan raqaajtaan baan intaasna idinku booriyay waanad bilowdeen oo idinka muuqataa dhalinyaro firfircoon Allah idinka dhigo dadka ay ku shaqeynaysan ayaaba ka mid tahay waxyaalaha dadka dhiiri gelinaya dadku waxa ku dhiiradaan hadii maamulkiisa iyo hoggaankiisu fiican yahay way dhiiradaan haduu wasiir yahay haduu maamul yahay haduu ganacsade yahay haduu nin ma garanaysaa wax bartay yahay hadduu nin dibadda ku maqan yahay dadka degmadan u dhashay waxaan leeyahay degmada hal eego dadka degmada deganna waxaan leeyahay adduunyadu waxay wax ku qabataa oo wax iyadu ay haysato war haddaynaan cashuurta bixinin oo aynaan beeraha cashuurta ka bixin oo aynaan barkadaha ka bixin oo aynaan guryaha ka bixin ma odhan karro maxaa wax la noogu qaban waaye innaguna taa inuu diyaar garoonaan leeyahay dadweynahan intaasaan leeyahay والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وجهرين إلهي بمحله مرلبات وحنو محضن قيا وضياشة مامولكا تولد كريغل ونمان تشوغنو كرمير كيجي شناد مالنتي شناد يعني كمريني دوري صدق كتولة هوس ماده تجمد فرويني. كنتي هالكن واحد كم ده ميلها قديمي جاه أو سومالي لان مركل ليجو وجو قديم السن. halka waxa mari jirtay wadadii Djibouti iyo Soomaaliya isku xidhi jirtay xiliyadii aynu isku jirnay dawladda Soomaaliya ilaa Ingiriiska waxay ahayd wado weyn oo halbowlaa waxa halkan ka sii muuqda dhismayaal qadiimiya oo runtii ah dhismayaashii ay kolkii ay caasimadda halkan ay ku ahayd dhisnaa waxay u baahan tahay inay gariga noqoto gariga sheedii hore wadadii ay ku noqon lahaydna waanu ka wada faqnay فقبا نوضياشا كيالاني ونمحوها إيجاد كاسان اسكوكو بحناي وحبانو اسلا حريقناي إلهي ديم كيسا وحا آنو مان تقوى دا هذا اللي يخ شرر دنبه هونو اسكوكو إيمان دونو حانو رجينينا إنانو مرفي عاني كسو بحان إلهي ديم كيسا كو اسكو تشادا اسكو قلب النقضة أيانو رجينينا بإذن الله كريم الله نقلقو تدوينها هنا وحان لايها واربال صلاة نهينو تكونو عبادة نهينو إلالينو عرورها نحينو تلدو gacanta ku hayno ciyaalka wax barno oo inuu mustaqbalka caruurteena ka talino waa aayaheeni waa aayihii farweyne caruurteena maanta kuwa bari ka maalin madax noqonaya bari ka maalin inay wax taraan la doonayo weeyaan ana jeynaya halkan waxa ku nool odayaasha ugu xilkasan odayaal badan oo xilkaso culimo leh ayaa degan iskuulkan Garigol wuxuu ka mid yahay iskuulada degmada farweyne aadka loo majeerto runtii waxaan uga mahadnaqayaa maamulaha iskuulka oo runtii ah nin dhalinyaro oo firfircoon oo ay ka muuqato iskuulkiisa
ay ka muuqato maanta cid walibana ay og tahay miyi iyo magaalaba annaguna wax kasta oo u baahan yahay waanu la qabanaynaa haddii ay muxuu ahaayey amni tahay iyo haddii ay abaabul tahay wax kasta u baahan yahay ilaahay idinkiisana waanu u dhaganuglaanaynaa wax kasta oo baahidiisana waanu u dhaganuglaanaynaa hadduu noo baahdo yiraahdo waxaan u baahanahay inaad dadka tuulooyinka la soo wacyigelidaan anigoo gudoomiye waanu imanayaa xogihii wuu imanayaa waanu u dhaganuglaanaynaa bidmillaahi kariim aad iyo aad baad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay khadhigo waxaan soo dhaweynaa hadda waxaan soo dhaweynaa gudoomiyihii degmada Faraweyne oo lagu soo baxday tuulada Malowle oo ka mid ah degmada Faraweyne anigoo ah Xaashi Maxamed Cabdi gudoomiyihii tuulada Malowle waxaan ku soo dhaweeyay Maxamed Cabdi Cismaan oo gudoomiyihii Faraweyne degmada Faraweyne waxaan ku sheegayaa gudoomiye wixii wax qabaday iyo wixii baahiya jirana inkastoo waqti dambe tahay taween ku hadda noqotay barasho wanaagsan gudoomiyaha cusub baan ku soo dhaweeyay waana wixii dambe weyn ka wada had doona waan xeel baan ka wada yeelan waan soo weyn isku warram doona halkani waxa weeyaan tuulada la yiraahdo Malowle waxa weeyaan markaasi kolka dadna isbarasho ayay maanta u badnayd wixii macluumaad ah ma garaysaa dhowtooleen laga wada hadlayo dib baan u dhiganay kolka dabadeedna sida weeyaan oo imika waxa weeyaan isbarashadii un baan ku jirnaa waxaan uga mahadnaqaynaa soo dhaweynta qiimaha leh ee ay noo sameeyeen runtii aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa waana u mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba goor kulul baanu ku soo beegnay annaga oo wareegaynay maalintii shanaad tuulooyinka hoos yimaada degmada Faraweyne aad iyo aad baan marka hore idinka mahadnaqaynaa soo dhaweyntaas mar labaad kullay waxaynu yeeli doonaa maanta iyo maalmo kale oo isku iman doonaa waxa ugu badan aynu ka wada hadli doonaa waxa weeyaan sidii inagu aynu danaheena uga tashan lahayn mid kale taa waxa weeye dadku iyaga ayaa wax qabsada haddii qofkuuna waxba qabsan waxba cidina lama qabato sida aad macallimiinta mushaarkooga iskaga bixinayseen ee caruurta waxay idinku dhigeen idin wadeen ayaad wax walba u qabsan karaysaan sidaynu inagu gacmaha isku qabsan lahayn inuu wax u qabsan lahayn haddii Allah yiraahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin waan ku faraxsanahay soo dhaweynta quruxda badan ee noo sameeyeen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halka waxa la laalayska bari goobtaynu joogno marka gudoomiyaha iyo xoghaynta iyo taliyaha booliiska intaba aad baad u salaamantiin degmadina Faraweyne loo timideen soo boqotay annaguna waxaan gudoomiyihii degmada laalayska bari aad baan u soo dhaweynaa aad baan ku mahadnaqaynaa wada shaqayn wanaagsan iyo wada tashi wanaagsan ayay naga dhaxayn doonaa hadii la yiraahdo aad iyo aad baan qamca furbaad ku soo dhaweynaa soo dhawaada gudoomiye kutida laalayska bari maxamed Soodaani u gudoomiyaha yahay xubnaha anigoo ka mid ah alxamdulillah waan salaamayaa gudoomiyaha cusub ee loo soo bedelay degmada Faraweyne gudoomiyaha ku xigeenka taliyaha bilayska xogayaha dhammaanba intaana soo booqatay malaa'igta ha booqato waan soo dhaweynana waanu salaamanaa qalbi furan iyo carab furan iyo calool furan baan ku soo dhaweynaa taasi wata salaanta annagu waxaanu nahay laalayska bari waxaanu u baahanahay inaanu degmada wixina looga baahdana aanu si fiican ula qabanno fulino wixii deegaan u baahan yahay degmo uga baahan yahayna aanu wada xiriirno wax wada qabsano wixii umusha u dana ilmaha u dana leeyahay degmada wixii kor u qaadaya inoo wada dana marka deegaanka wixii degmadu uga baahato waxaanu nahay odayaasha la diyaara fulinaya lagala xiriirayo wixii degmada looga baahan yahay deegaankeedu uga baahan yahayna waxaanu jecelahay inaanu isku xidhnaano mas'uuliyiinta degmada oo noo warramine indhahooda kaga warhayaan gudoomiyaheeda iyo duqeydeeda iyo mas'uuliyadeedu ka warhayaan intaasaan ku dardaaraya insha Allah waxaan ilaahay baryaanaa labadii intii kalgacal ku kulanta kalgacal ku kala tagta korna khayrkooda Allah u qaado inaynu ahana taas ilaahay baryana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaasaan ku dardaaraya insha Allah waxaan ilaahay baryaanaa labadii intii kalgacal ku kulanta kalgacal ku kala tagta korna khayrkooda Allah u qaado inaynu ahana taas ilaahay baryana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin aad iyo aad baad
ayaan ugu mahadnaqayaa odayaasha guddoomiyaha tuulada laalays bari iyo xubnaha guddida. sidoo kale waxaan uga mahadnaqayaa sida quruxda badan leh ee sharafta leh ay noo soo dhaweeyeen ee karaamada ku jirto. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dhammaan dadweynaha laalays bari. ilaahayna waxaanu ka rajaynaynaa sidaa fiican ee kalgacal kale ee noo soo dhaweyseen kuwa iskugu xidhnaada ee intaa iyo in ka badan iskaga sii dhawaado inuu ilaahay naga dhigo bismillaahi kariim insha allahu tacaala. annagu waxaanu halkan ka ballan qaadaynaa inayna noqonin markii iskugu keen dambeysay insha allahu ee ilaahay idinkiisa ay noqoto markii iskugu keen horreysay. waxaanu halkan ka ballan qaadaynaa inaynu si dhow oo xooga iskaga warhayn doono waayo ilaahay baa iskeen baday intaanu anagu xafiiska joogno. waxay baahiyaha aad sheegteen ee waxbarasho leh caafimaad leh wixii itaalkeena aynu qabsan karana bismillaahi kariim waynu qabsan wixii aynaan qabsan karayna ciddii ay khusaysan kala xidhiidhi doonaa inagoo gacma is haysana hadday tahay wasaaradda waxbarashada iyo hadday tahay wasaaradda caafimaadka iyo hadday tahay wasaaradda biyaha iyo hadday tahay cid kastay khusayso bismillaahi kariim baahideeda waynu u gudbinaynaa. waynu rajaynaynaa inay noo dhegnuglaan doonaan. waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa sida quruxda badan leh waa deegaankii keliya intaanu maraynay beerahooga iyo muxuu ahaaye shaqo fiican ka muuqato iyadana in beerahana wax laga qabsado oo muxuu ahaaye dee wax laga qabto. caruuraha iyo ciyaalkaynu dhalnay waa ubadkeennii waa mustaqbalkeennii iyagana inaynu waxbarashadooda haddii allah yidhaahdo ka fikirno oo sidii aynu carruurta wax u bari lahayn aynu niyadda ku hayno. nin walbaba ilmahaaga mustaqbalkiisa aad ka fikirto waayo aakhirina waa lagu weydiinaya ilmahaaga yar haddaad diinta bari weydo oo aad muxuu ahaaye mustaqbalkiisa ka talin weydo. baahidu way ka simantahay farweyne oo waxbarashadu way wada hooseysaa caafimaadku sidaa kadaalika wayna arkayaan dee wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradihii ay khusaynaysay wayna ka warhayaan wixii kale ayna ka warhaynay annaga u gudbinaynay ilaahay idinkiisa wixii aanu odayaasha uga baahano ee ama meel wasaarad la tegaya ama meel kale wax laga doonayana dee waan la soo xidhiidhi doonaa innagoo wada jira ayaynu ka doonan doonaa. saas gacmuunbuu haddaynu gacmaha isqabsano gacmo wada jir bay wax ku qabtaan cid kastana way noo soo joogsanaysaa inaguna waxa waynu qabsan karaynaa bismillaahi kariim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. annagoo guddoomiyihii faraweyne ee cusbaa maxamed abiib ku soo dhaweynayna degmada laalayska waxaan leeyahay salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa. markaa isagoo buuqasho wanaagsanna soo buuqday annaguna aanu soo dhaweynayno waa 100% baanu salaamaynaa. waxaanan leeyahay degmada laalayska ku soo dhawow waanu kugu soo dhaweynaynaa waanad arkaysaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anigoo ku hadlaya magaca laalayska halkani waxa weeyaan laalayska magacayguna waa cabdi maxamed xaaji waxa weeyaan guddoomiyihii cusbaa oo maanta na soo booqday. waanu aad ugu faraxsanahay si uu barasho iyo dhulka uu maamulayo uu arko. marka waxa weeye waxaanu leenahay ku soo dhawow guddoomiye welcome. laalaysku waa laalayskii waana mahadsantihiin. waa maalintii shanaad ee aanu soconno ee aanu kormeer xaaladda degmada sidii loogu kuura geli lahaa. marka waxa weeyaan kolley arrinkayga waxaan daarnaa 2 arrimood si aan xoogaal ugu noqon lahayn deegaanka iyo wuxuu ku sugan yahay iyo saan guddoomiyuhu isku baran lahaayeen dadkan uu xukumayo. marka kolley inta badan dasban halkay ku soo gaaban doonaa. ugu horreyn ilaahay baa mahad leh. waa maalintii shanaad ee kormeerkan ku mariyay tuulooyinka hoos yimaada degmada faraweyne. halkani waa laalayskii waa koonihii u kooneeyey u galbeedeeyey degmada muxuu ahaaye faraweyne. waxaanu halkan xad dhow la leenahay gobolka gabiley degmadiisa arabsiyo. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddoomiyaha laalayska cabdigahayr odayaasha guddida iyo dhammaan dadweynaha laalayska meel kastoo joogaan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh ay noo sameeyeen. waxaan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa runtii ilaahay idinkiisa waa maalintii koowaad. waxaan rajaynaynaa maalmo kale oo badan inaynu soo mari doonto isugu iman doono halkan anagoo ka wada hadli doono danaha iyo horumarka tuuladan aanu joognay laalayska. laalaysku waa meel shaabuurleyda ee quruxdeeda la arkayo waa meel muxuu ahaaye astaan iyo qiimo weyn ugu fadhida degmada faraweyne. meesha qiimaha leh ee quruxda leh ee muxuu ahaaye barwaaqadaasi inay ka mid tahay degmada faraweyne. waa meel loo talxiis iman karo runtii. aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa guddida tuuladan laalayska uu hogaaminayo cabdigahayr. runtii
baahiyaha aanu ka wada hadalay sidii aanu wax uga qaban lahayn ayaanu insha Allah anagu ka wada tashan doonaa wixii meelo kale nagaga xiran ama dana kale ama wasaarad nagaga xirana anaga oo dhameystiran hadii Allah yiraahdo ayaanu si wada jir uga hawlgali doonaa wixii anagu aanu muxuu ahaayay gacanteeda ku jirtay anagu gacanteeda wax ka qabsan karana cidna la sugimayna anagu isku tooban ayaanu gacanteeda bismillaah kariim wax ka qaban doonaa ilaahay kariim aad iyo aad baad mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh horta maanta waxa mahad weyn oo ah oon aad iyo aad ugu mahadnaqayaa gudoomiyihii cusbaa ee degmada Faraweyne oo aanu halkan tuuladan abuuriin aanu ku soo dhaweynayno marka hore hadalka sii badin maayo waxa weeye waqtiguna waxa weeyaan waqti yar waa kuleyl oo cadeed baan joognaa aniga oo ku hadlaya magaca tuulada qurca abuuriin anagu maanta waxaan u baahanahay saddex qodob ayaa wax soo saarka dib u dhiga kow tooraysa waxa weeyaan shaqo la'aan aanu qofku muruqiisa dhulka gelinin laba aqoon la'aan oo qofka aadaanu aqoon lahayn wax soo saarka dib u dhacaya qodobka saddexaadna waxa weeyaan niyad jabka wax la yiraahdo oo ka ugu xuna ee aan laga soo waaqsana marka waxa weeyaan niyad jabku wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idinku soo dhaweynayaa gacmo furan aniga oo ku hadlaya magaca gudoomiyaha anigoo ku hadlaya magaca iskaashatada talawadaag ee tuulada qurca abuuriin ahna gudoomiyaha iskaashatada beeraleyda talawadaag inta ka bacdi haddii aan mudane gudoomiye warbixin ka siiyo xaaladda ay marayso iskaashatada beeraleyda talawadaag oo sanadkan laba jirsatay mudane gudoomiye waxa aanu ka bilownaa hawsha meel hoose waxaanu maraynaa meel fiican mudane gudoomiye waxa aanu beernay sanadkan dalagyo kala duwan waxaanu beernay arabki hadhuudh digir sinsin basal tamaandho akhtar iyo noocyo kale oo geedgaaba run ahaantii waxa aanu bilownay hawsha bishii saddexaad isla sanadkan wax beerista aragadiga waxaanu bilownay bishii saddexaad 15keegii in aanu ka hawlgalno sidii aanu dhulka u beer lahayn run ahaantii waxa aanu helay waqti aanu islaam fursad ayuu idin yahay waxa ugu yar wax la qabto in la yiraahdo qofku waa hebel waxa qabso waana wax qaali bilaadan ku xayir buu haystaa laakiin waa wax qaali in mujtamaca cidda mas'uulka ka yahay maadaama ilaahay taa kala xisaabtami doono xil weyn uu ka saaran yahay inuu qofku soo maro uu soo wacyi geliyo waa arrin qaaliya aad baan ku soo dhaweynaa waana kaaga maandaqana safarkaagan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu istirsanaan iyo isku xidhnaan ayaa wax loo kaagan inankii Faraweyne kii hadaan wax la qaban oo kala soo aan u tiirin ka garab sanaa wax lagu doon xaba haagayaan laakiin dilaa ninkii muxuu keenay oo ma soo doortay oo xamu keenay warkan muxuu ah يلا روني حوي وطرش دورت هذي واحد دوري هذي واحد قبصنا يصير رفت نجو جودها أنا كذا أنا وقبصنا أو دنتيلا يوم مدينا يوحنا تذكر لنا حق بذا أدوك وحق حساب طما وحيسة كي حق يروح حق يروح كي حق يروح حق ضره مركل ما لسه واحد كسر قامية لكن ده ناس وحكي نروح بها قامية تعالوا حق بورنا حلا ور إنه دنتيلا على الحصة يقول أو ذا شخص له أو هذا علم تاي هذا حق صار أنا برو قدومي عصمنا عصمنا قبلنا إلهي المعاه نصيب الساعة إلهي المعاه بحية أرسقنا إلهي بحية بالآذن كيسوا بار سقصة تلقنا له براقي قلنا عصمنا الله فضي إنك لا إلهي نقول قارب يحين تلاهم الحرس وحنا والله يسيادي معرفة دقيقة فاتحة waxaan la yimid maanta waa waxaan joognaa abuuriin xaaladuna waxay u deetay ugu horgelida degmada loo gurgelay baahiyaheeda iyo hawlaheeda marka wax kulay odaashii way ugu horeeyeen waana laga dambeyn doonaa anigu intaas baan yar xusayaa in kormeerkii aan ku jirno maalintii lixaad aan marno tuuladana waa abuurin waana tuuladii 18aad ayaan marno alamin وبه نستعين على امور الدنيا والدين الحمد لله ilaahay waa mahad leh aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa dadweynaha reer qurca abuuriin sida quruxda badan leh muxuu ahaayay wanaagsan ay noo soo dhaweeyeen qoladeedan maamulka ee maalintii lixaad muxuu ahaayay marayna tuulooyinka hoos yimaada degmada Faraweyne ana aad iyo aad uga xumahay
dadka populationka intaa leega ah meesha ugu populationka badan leh in iskuulkiisii u xidhay arrintaa waxaan leeyahay wixii dee tala ay muxuu ahaye iskugu noqonayaan talaha iskugu noqdaan wixii annaga nagala gudboona anaguna waanu qabanayna hadday tahay carruurta waanu ka ballanay odayaasha in ciyaalkii la keenay in wixii kale imkaaniyadana loo raadiyo hadday tahay macallimiintii iyo buugaagtii wax lagu dhiganayay iyo wixii oo dhan taana wasaaraddina waanu kala hadli doonaa insha allahu tacaala annaguna wixii karaanka iyaga reer Faraweyne ahaan waanu qabsanaynaa waananu dadaalaynaa sida ballantu aanu ku ballannay dadweynaha inaanu dadaalo in carruurta la keeno iskuulkaana la furo ayaa insha allahu tacaala ayaanu ku dadaali doonaa سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم horta waxaanu idinku mahadnaqaynaa maamulka cusub ee degmada Faraweyne aad baan idinku mahadnaqaynaa hambalyaanu idinku waxaanu u baahanahay deetanaasula tababar dumarka umulisooyin dumarka loo tababaro wacyigelin badan oo dadka adoo si ay degmadiyo iskugu xidhmaan tuulooyinku aad iyo aad baan ugu baahanahay waaba iga dhantayba magacayga maxamed cabdi xuseen tuulada waxa la yiraahdaa guul allah halkan waxaanu idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan qalbi furan booqashada annaga lahayn inaanu idin soo booqano idin nimaadno laakiin nasiib wanaag idinmaan waqtigu looma saamixin laakiin goobtan annagoo joognaa ducaanu idin soo hawada idin soo raacnay aad iyo aad baan idinku soo ducaynay marka allah inoo aqbalo xagga baahida waa ka mahdiyiinta taabanayay dhulku degmadu aad iyo aad buu degaankani nabadgelyadiisu fiican tahay wixii dalagii la qotayna maanta nusqaan baa la ku ridayo caleen iyo calfida laguma hayo marka baahiduhu way fara badan yihiin midda kale wixii sanadka naloo qoday hay-adihii saacadaha dadka siiya cagafyadii weli waxoodii soo gaarna waa la leeyahay dhulkiina waa la qoday si fiican bay iyagu qodeen laakiin wixii uu ka maqan yahay iyagana kullay idinkaa nooga fara dhuluumane inaad intaana xaaladeedu waxay tahay aad la xidhiidhaan hay-adda intaana waan idinka codsanaynaa wasalaamu calaykum iyo gaar ahaanba waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay marka labaadna waxaan u mahadnaqaynaa dadweynahan magaalada tuuladan Kuulalla sida fiican ee karaamadu leh noo soo dhaweeyeen waan uga mahadnaqaynaa kullay hadalka dhammaantii odayaasha ay laakiin waxaan ku darayaa laba kelmadood in muxuu ahaayay ilaahayna laga baqo inuu ilaahay ka baqno inuu salaada tukan tuulada Qoryo yaanu joognaa waxaanu aad u soo dhaweynaynaa wafdiga degmada Faraweyne gudoomiyaha iyo wafdiga la socda deegaanka reer Qoryoodna aad baanu idinku faraxsanahay imaatakiina aad baanu idinku mahadnaqaynaa halkani waa tuulada Qoryo Soomaaliland iyo madaxweynaheeda iyo madaxweyne ku-xigeenkeeda aad baanu u salaaminaa waxaanu aad u salaaminaa dhammaan dadweynaha reer Soomaaliland baanu aad u salaaminaa wala nabad qabaa wax dhibaato ma jiraan nabadgelyadu way fiican tahay oo boqolkiiba boqol baahida tuuladan hadday tahay meeshu waa meel deegaankeeduna markii hore reer ooga ka soo jeeday sidaa darteed waxaanu leenahay baahida ka jirta tuuladan waa baahida Soomaaliland ba ka jirta dalka Soomaaliland baanu la qabnaa baahida ka jirta hadday ka jirto anagu meeshan aanu joogno iskuulka iyagu waa laba galaas labada galaas ee uu leeyahay iskuulku wuxuu u baahan yahay repairing wax laga bedelo suuliyada iyo biyaha iyo waashmaanada xataa malaha meeshu marka waxna laga qabto waan u baahanahay macalinkiina uu nala joogaa waxaan leeyahay gudoomiye biyaha iyaguna aad bay meeshan u yar yihiin MCS mala meel dawkiinigo dawayar laga qaato malaha meeshani wada xumada dalkaanu la qabnaa waxbarasho la'aantana dalkaanu la qabnaa laakiin Soomaaliland aad bay waxbarashada imika ugu dadaashay waxaanu jecelahay xagga waxbarashada in laga caawiyo xagga caafimaadka in laga caawiyo intina la qaban karo Soomaaliland soo dhaweyn wanaagsan raalli naga hada xilli danbaa noo timaadeen oo dadkana kala foofo kala maqan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
waxaan salaamayaa gudoomiyaha cusub ee degmada ee soo buuqday salaamta islaamka ku salaamana tabadeed taa markaan ka gudubno waxbarashada iyo caafimaadka xaajigu noo maray waa waxyaabaha ugu horeeya dabadeed inuu si fiican la noola qabto oo wixii annaguna ku darsanay iyaguna nala qabanayaan waan uga fadhinaa xaajiga noo dhameeyay saas aniga bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay baa mahad leh halkan inuu joognaa waa tuulada Goryo sida xaajigu sheegay waxay ka mid tahay meelaha qadiimiga ah ee degmada Faraweyne astaanta oo la yaqaano wana meelihii talisyadii jabhadii SNM ee dalka laga xoreeyay ay deganaayeen ee dalka laga xoreeyay bay ka mid tahay baahi badan baa jirta runtii oo ka muuqata haday tahay dhinaca caafimaadkii dhinaca biyahaba waxaan rajaynaynaa bismillaahi kariim wixii baahiyeen ilaahayna la qabto insha Allah taala anagana wixii karaankayaga aanu isku tagno oo isku ururno wixii aanu qabsan karana aanu fuushano wixii kale muxuu ahaayay ay naga xidhnaan anagu wada jiraan insha Allah ka wada doono bismillaahi kariim waxa halkan jooga xaajigii oo isaguna harkii jabhadii ka mid ahaa odayaasha waaweyn ee deegaankana ka mid ah walow imika xanuun baa ilaahay idinkiisa ilaahay isagana caafimaad سريعنا هالسيو حنا له نقول دعينا يسقنا اللي هي عفمات كا هاي سيو سي مدو وأنا رجعت ثلاثة أضياش ماشى الله قدام بيو أيو ده كمية حيوان أضياش ديجان كا أضياش وين ديجان كا مدنا ده كسو شري هاي هذا تنبضة هي يوم قدام بينا سيدو بان إن شاء الله ولا تشندنا وحي طلع أنا جاحد من بسم الله الكريم هذه بعد ما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tuulada waxa weeyaan shil cabir weeyaan halkaan saldhigu halka tuulada reerku saldhigu marka waxaan ka doonaynaa dawladda waxaan ka codsanaynaa degmada Faraweyne biyaha noogu daran xaga weelka naga xun weelku waxa weeyaan ceel marhin ceelkayo waa ceelkan inaga dambeeyo weeyaan ceelkayo ceel kale oo xagaana waa leen oo beeshu leedahay kana waa ceel shakhsi soo fahmin marka waxaan ka codsanaynaa degmada Faraweyne gudoomiyaha ina biyo naloo qodo oo biyaha ceelasha naloo sameeyo naloogu qodo imika ceel kale hore naloo qoday oo halka dabarqas nalooga qoday ceelkaasi biyaha waanu cabnay ilaa 5 bilood baan cabnaa biyihiisa marka balay halka aan ku leenahay hoosta iyo balayadan shakhsigana inaad dhoobada nooga qaadan baan ayaan ka codsanaynaa talabaad degmada Faraweyne jaarkayaga degmada allay baday waxa la siiyaa in qarbada loo keena beesha waxaan uga baahnaa in qarbadana loo keeno oo anagu kulba mid qaar baan isku warwareejino bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah rabbil caalamiin halkan joogna waa tuulada Sheekh Caamir wallahi Sheekh Caamir markii aan soo soconay waxa baan eegnay dirkadihii aan soo mareynay kale oo inay wax ka dhisnaadaan laakiin meel masaajid ay ka dhisan tahay baan soo marnay waxa maaha waa tuulooyinka kamid ah waxay u baahan tahayna waa tuulooyinka u baahan yihiin way u baahan tahay dayaca ka muuqda laakiin qayb bay ka tihiin dadweynaha reer Sheekh Caamir waxa xusteen halkan tuulada allay baday idinku xigta loo keeno qarbado allay baday waxbay la soo baxday waxba soo saar bay samaysaa sida awgeed bay xaq ugu yeeladay la siiyo qarbadada idina waxa la idinka doonayaa inaad beeraha horta qodataan markaad beeraha wax ka fashaan qasab waa la idin keenayaa marka qarbadkii wixii la idin qabanayo balalayaday noqotay xoog baad leedihiin dhalinyaraatiin inta qaadka iska deysaan halkaas ku soo baxo shaahana ku tulgarsada annana wixii aanu idin helahay inuu ku caawino ceelasha idin ku dhooba qaata wixii annagu aanu idin qaban karana waan idin qabanana waxaan rajaynaynaa Sheekh Caamir kulay waa meel magac weyn oo muxuu ahaayay in waa meel magac weyn waxaan halkan baa uga diraya dadkayga reer Sheekh Caamir oo ugu horeeya chiefkii duqay oo isaguna walaqba beero badan ka sameeyay inuu halkan wax ka qabto beerana ka sameeyo bustaana ka sameeyo waxna laga qabto oo muxuu la dadaalo la isku tago waxbarashadana caruurtiina ku dadaala waa inaad ku dadaashaan caruurta hadii kale sidii naas oo kale bay barwada muxuu ahaayay halka ay laag fadhiisan doonaan waxa la idinka rajaynayaa maalinta xigta idinkoo isku tashado oo rag inta noqotaan isku yimid oo wax isfaray aan isku soo noqon insha Allah taala assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh She's